famil dhan ayaa naftooda waxay ku waayeen telephone iPhone dartiisa. Sheekadan waxay ka dhacday waddanka Hindiya. Familkan oo wiilkooda dhahay telephone iPhone-kii u dambeeyay ayaa u baahanahay oo ayagana markaas aabihii hooyada ay dhaheen dhaqaale anaga hadda ma haysano oon telephone kugu gadno. Sidaas darteeda telefonka iska dhaaf oo asagana uu dhahay maya telephone in la ii gado ama inaan nafteyda aan maxaa la dhahay aan nafta iska jaro oo dhinto labaas wax ka dhaxeeya malahan uu leeyahay wiilkan aa u jeedaan intaan la eg. Wiilkii wuu soo baxayaa meel buuru imaanaya uu ugu talagalay inuu iska tuuro. Soo booliskii iyo familkii iyo xaafadii wixii dhan meesha la iskugu imaanaa. Waa la isku dayaa in la qanciyo si uusan buurtas naftiisa ugu halligin laakiin way ku guuldareysanayaan. Markii dambe aabihii isku dayayo inuu asaga yacni xoog uu u soo jiido canuga yacni maxaa la dhahay uu badbaadiyo. Laakiin wiilkii ka xoog badinayo asagii aabihiisa sida xanuunka badan leh meeshaas ugu dhacayaan buurtaas ka soo noqosho xitaa ma lahan. Sida hadda la sheegayna wayba ku dhinteenba wiilkii iyo aabihii iyo hooyadii oo ayadana gadaal iska tuurtay markii dambe oo dhahday marbi inaa sii noolaado yacni maxaa la dhahay maadaama familkii meeshaan ay ku wada dhaceen. horta walahi qisa xanuunkeeda leh waaye in yacni famil dhan telephone dartiisa ay sida isku halligaan. sheekada mid la mid ahna waxay ka dhacday Soomaaliya ilaa ay hadda yacni ma xaqiijin karo in uu canugaas dhintay iyo inuu nool yahay. canug yar oo dugsiley ah ayaa hooyadiis maalmaha fasax wuxuu leeyahay telephone aan rabaa inaan fiirsado telephone-ka isii. So hooyadina waxay leedahay maya oo waalidiinta Soomaaliya maasha Allah xitaa fasax haddii lagu jiro waxay jecel yihiin ciyaalkooda inay quraanka muraajaciyaan. quraankaada muraajacayso oo waxay leedahay telephone maxaa la dhahay faa'iido ma lahan way ku adkeynaysaa markay ku adkayso waxaa leeyahay canuga jikada intuu tago xarig qoorta iskaga xiro uu jikada iska soo daldalayaa. So canuga jikada markuu iska soo daldalo qisadiisa in uu dhintay iyo in oo la badbaadiyay ma haya xaqiiqadeeda sababtoo ah ma sii dhageysanin wax kale iga soo dhaxgalay. marka telefoonada khatar ayay ku yihiin mujtamaca hadda zaid khaasatan ciyaalka yaryarka ah. hooyo haddii aad tahayna waxaa waaye ilmaha telephone mar hadday kaa bartaan horta waa bes hadday kaa bartaanna waxaa waaye waa inaad noqotaa qof dhexdhexaad ah oo markuu ciyaalka yacni uu kugu adkay nus saac ama wax yar inaad siisid ama aad ka ballan qaadid maalmaha fasaxa ah oo jimca iyo khamiis ama sabti axad xilliyada qof walba xilli dugsiyadiisa iyo iskuulaadkiisa fasax u yahay. So aad ka ballan qaadid maalmahaas bes inuu canugaada telefoonka fiirsanayo oo maalmaha waxbarashadana uusan fiirsanaynin oo go'aan aad kala qaadataan inkastoo ilmaha maasha Allah aysan go'aan lahayn ay telefoonka xadxadayaan laakiin haddana waxaa noqonaysaan dad isfahansan oo isku meel u socda maadaama aad ka ballan qaadaysid maalmaha fasaxa inaad siinaysid maalmaha kalena si waxbarashada uu ugu dadaalo xalka kaliya horta oo ilmaha u fiican oo telefoonka maxaa la dhahay looga yareyn karo xalkaas waaye. haddii canugaada hooyo kasta iyada is ogay uu dhegdheg yahay yacni oo telefoon uu ka tanaasuleyninna maalintii 15 daqiiqo yacni waqti yar u qabo ama nus saac oo kaleeto ku madadaali laakiin telefoon qofkii hooyadii awoodda inay ilmaheeda ka jarto wallaahi waxaa u fiican telefoonka inay ka jarto sababtoo ah saameyn badan ayuu leeyahay waxbarashada uu ka saameynayaa wax kastuu ka saameynayaa. shalay waxaan arkay dhakhtar asaga naftirkiisa qisadiisa gooni inaan usoo qaatay ahayd laakiin dhib ma lahan hadda idinkugu dhex daraya. dhakhtarkan carab waaye wuxuu leeyahay aniga ilmahayga telefoon dhan wuxuu leeyahay maba telefoon walaa iPad walaa TV waxaasoo dhan wuxuu leeyahay gurigeena lagama isticmaalo ka sheekeeya qof waqti xaadirkan joogo oo waxaasoo dhan gurigiisa laga isticmaalayni soo go'aanka qofka asiga ku xiran tahay. wuxuu dhahay waxaasoo dhan gurigeyga lagama isticmaalo uu dhahay ilmahaygana wuxuu dhahay caqligooda maasha Allah tabaarakallah sidii dad waaweyn camal u hadlayaan uu dhahay canugeyga 8 jirka ah wuxuu dhahay waxaa u maleysaa qof weyn camal. soo wuxuu dhahay maba aniga waxaasoo dhan maba siinin uu leeyahay yacni sida waalidiinta kaleeto oo maanta iPad usoo gad telefoon si waxaasoo dhan wuxuu leeyahay isma naqaano. qorsheyga waxaa ah markuu ay weynaadaan inay ayaga iskooda markaas waxay rabaan ay usoo gataan ay waxbarashada dhameeyaan. qof adag hadaa tahay hooyo ama aabbo oo go'aan leh farasti wanba ilmahaada telefoonka ha barin wallaahi maxaa la dhahay telefoonka dhibaato weyn ayuu mujtamaca ku hayaa. fideogana sheer gareeya meel dheerna gaarsiiya insha Allah.